dawada koobaad ee ka dawaa murugada warwarkiyo walbahaarka waa aliimaan walcamal saalix. qofku mar haddaanu iimaan lahayn saddexda way suran yihiin. mar kastoo iimaankiisu hoos u dhacana saddexdaasi way u soo dhowaadeen oo way ku soo durkayaan. camalka wanaagsanina iimaanka ayuu ka mid yahay. camalka wanaagsan waxaa soo gelaya waajibaadkii ilaahay ina faray, salaad iyo soom iyo zake iyo xaj iyo xuquuqda khalqiga badan, biru lwaalideyn iyo silatu raxim iyo kuwa lamidka. waxaa kaloo soo gelaya sunnayaasha, salaad sunna ah, dikri, soom sunna ah. waxaa kaloo camalka wanaagsan soo gelaya tarku maa naha allahu canhu lilah, in ilaahay daraaddii looga tago iyadoo rabbi loo hogaansamayo, la jecelyo o la weyneynayo wuxuu ilaahay addoomaha u diiday. kullu hada min alcamal saalix, waana qaybaha iimaanka kuwa ka mid a. ilaahay diintiisa in lagu toosnaado oo dembiyadii hore aynu usoo sheegnay cuduradan inay sababaan oo cuduradani ay yihiinba ciqaab ka dhashay addoonku inuu ilaahay daraaddi uga tago. faman tabica hudaaya falaa yadilu walaa yashqa. ilahay wuxuu uhi qofka hanuunkayga raacaa lumi maayo, baadiyoobi maayo, waddo saxa ayuu cagta saaray, kadeedni maayo, adduun iyo aakhiro midna ku kadeedi maayo, labadaba raaxa ayuu ku noolaanaya. wa qaala tacaala man camila صaalixا min dakrin aw unha wahuwa muؤmin falanuxyiyanahu xayaaةa طayiba walanajziyanahum ajrahum biaxsani ma kanuu yacmaluun. qofka sameeye buu hi ilaahay camal saalixa oo laba ama dhadiga, markaa camalka saalixa ee wanaagsan uu samaynayana qof muumina ah oo iimaan qalbigiisa uu ku jiro, falanuxyiyanahu xayaaةa طayiba. ilahay wuxuu ku dhaartay oo dhaar uu ku adkeeyey inuu ku noolayn doono nolol wanaagsan. meesha nolosha wanaagsan uu ku helayo ilaahay ma carabaabin, si gooniya uma sheegin. waxay noqonaysaa adduun iyo aakhiraba in nolol wanaagsan ku noolaado. laakiin nolosha wanaagsan adduunyada inta la jooga ma aha sida dad fara badani ay suuraysteen ama ay moodayaan, in xoolo la helo ama madax la noqdo ama naftu wax allaaliyo waxay doonaysa loo fuliyo, hoggaanka loo sii daayo, hawadeeda la raaco. nolosha wanaagsani adduunyada inta la joogo waa raaxada qalbiga, waa qofku inuu noqdo qof qalbiga ka raaxaysanaya. hadduu doonayo ha aradnaado oo ha cagaagnaado sidii saxaabaduba xaaladaha qaarkood ay ahaayeen, ha noqdo mid gaajoonaya sidii nebi maxamed ba calayhi salaatu wasalaam habeenno isku xiga uu seexan jiray isagoon timirta caamida nooca u liita wuxuu ku gaajo baxo aan ka helin. haddana waxay ku noolaayeen nololta u wanaagsan, raaxada qalbiga haysteen. imisaa dheragsan, imisaa xaragoonaya, imisaa gawaadhi qurux badan wata, imisaa ku jira guryo waaweyn oo balballaadhan oo fiilooyina dabaqya. haddana haddii la waraysto la yidhaahdo ka waran maxaad ka haysaa raaxo iyo badhaadhe adduunyo, odhanaya wallahi waxa mahaya, warwar baa idilay iyo murugo iyo walbahaar. marka nolosha wanaagsan oo aan nolosha ka maran cuduradaas, murugada, warwarka iyo walbahaarka, aayaddu waxay tilmaantay in lagu gaadhayo camalka wanaagsan. tusaale waa salaada. waa salaada qofku uu sidii nebi maxamed u tukado. waa salaada khushuucda wadata ee qofku aanu xubnaha un ka tukanayno, qalbigana uu ka tukanayo. waxay ka mid tahay waxyaabaha dawada ka noqda cuduradaas. wastaciinuu biالصabri wالصalaaة wainaha lakabiiraة ila calى اlkhaashiciin. salaada lagu raadiya, lagu baadi doonaa kaalmada ilaahay iyo gargaarkiisa. salaada la yskaga daweeyaa cudurada. nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam si dhaba ayuu u gartay una dhadhamiyey salaadu inay tahay dawada qalbiga. faqaala calayhi الsalaatu wasalaam wajucilat quratu caynii fi الsalaaة. waxa qalbigaygu uu ku raaxaysto ee qalbigaygu uu ku farxu ku indhadoogsado salaada ayaa la geliyey. walihaada nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam markuu culays dareemo
وأهمه أمر أرن ورقليه نبي فزع إلى الصلاة صلاة كوير كان جرى النبي محمد عليه الصلاة والسلام الله خالقها أحواش بدلاء الرمان هاجاتية أيو حرير توصل للسمين جرى مركز حالكم اسبدل جرى وقد اقتدى به في ذلك صحابته الكرام صحابتي سي خير كبدنا أرنتها رسولك واكا قد ضيدين عبد الله بن عمر رضي الله عنه سقوا سفر كجرا أي وردي الذي سوق قاري وحا الله شيء ولالكين وقيريودي وين وقنا إيمانته إن بدنا دتك كمدا ورك نوع عاصمر كسوق قاري وحيالان أنت إلهي حصوصتا وأنت يربى لورنك ربني آدم كسجود مرك الله قيمة عبد الله بن عمر رضي الله عنه نزل وصلى قاعدين كيبو كدقي ودادي بودينا وقبايري si geerida loo soo sheegay qalbigiisa aanay u xanuujino aanay ugu furin murugo warwar iyo walbahaar salaada ayuu tukaday cabdullaahi bn cumar radia allahu canhu towbada ayaa ka mid ah acmaasha fiican ee dawada ka ah murugada warwarka iyo walbahaarka waayo dembiyadu fasaadka ay sababaan iyo kharibista nolosha ay kharibaan bay cuduradani ka mid yihiin ilaahay subxaana watacaala uu yidhi ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس مركز طوى درين تمرقو ورور إيو البهار إيمان كاقد دب أقول نقوم ميزان كسر زيادة وكرد وكرقات عمل كصالحة بدي أو وناتي دب يسوقون نقوس حسابي وحي أدخل الدها جاتي دنبق إلهي كافو قيينا كسر نقو وربي سبحانه وتعالى أسول دو سيد بابا إياد وهي اللي دونتا الدوادة عذر ردعس ديبكو دنادو قبت بالي دونتا